Ti wacan oo wanaagsan khayartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni haldoorka haweenka oo toddobaadkii hal mar ka daawataan TV-ga caalamiga Star TV xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijkan oo alaaba ku soo casuumo haweenka haldoorka oo ah bulshada barnaamijkeena toddobaadka waxa marti igu ah Caasha Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Link Organization waxaan jecelahay Caasha inaan ku soo dhaweeyo stuudiyaha koobaad ee Star TV santahay wandhowahay hodan aad baan u faraxsanahay Star TV maanta iga wareysanaysan aan ugu faraxsanahay in aan ku fidiyay inaad igala soo qayb qaadasho oo ku dhahdo Caashay barnaamijka marti igu noqo inaad iga aqbashay waliba waqtigeedii aad timi aad baan kaaga mahadnaqayaa mar koobaad iyo mar labaadba Caasha intaan dhanka su'aalaha u gelin waxaan jecelahay inaan adiga iyo daawadayaasha barnaamij Caasha Maxamed Axmed waa maxaa la yiraahdaa hooyo wanahay iminka dhawaana ilaa 2 sanadood barnaamijkan galay ganacsiga maxaa la yiraahdaa qurbahan oo soo joogi jiray wadankana markaan yaraa waan joogi jiray intii qaxa ka hor nimkana waan la joogaa 4 sanadood wadanka waan soo guuray waxyaabo badan baan ahay laakiin intaas aan igu soo koobaya taariikhdaada kooban laga yaabo inaad wali Caasha si daayar tahay aad wax noo qarinayso intaasaan kaga imanayna intaasna kaftanayno haato Caasha waxa tahay gudoomiyaha ururka Link Organization muxuu qabtaa ururkaasi wala Link inay waa goob hablaha ganacsatadu isku bartaan waxna kala bartaan oo istaageeraan iyagu marka iminka sanado dhowban ayaan bilaabay marka waxa weeyaan adigu sidoo imka basically sidoo yahay waxa weeyaan bishii mar baan isu nimaadnaa oo hablihi ganacsiga chance inay isu yimaadaan oo isbartaan maxaa la yiraahdaa si ay mid ka waayo network inaad yeelatid waa muhiim linkna marka la soo gaabiyo xayaan lifestyle networking club inay hablaha maxaa hada small business kale lifestyle business ka ku jira inay maxaa hada isqaan qabtaan oo isla xiriiraan ba muhiim awgeed baan u sameeyay isla xiriiraan ba muhiim awgeed baan u sameeyay watay ururka markaan u soo noqono isaga la fahantiisu marka hore intaanu habli isku xidhin asaas ahaan maxaad u sameysay muxuu qabtaa shaqadiisa tooska ah maxay tahay waxaan aad hami u lahaa inaan business bilaawo marka cafeteria ayaan bilaabay cafeteriaga waxyaabo badan baa iga soo qabsaday ilaa businesskayga ugu horeeyay buu ahaa laakiin tii ugu weyneed iga qabsatay waxay ahayd network ma haysan network waa aad buu muhiim yahay waayo network-kaasi adigii buu customer ku noqonaya first of all waayo network-kaasi adigii buu customer ku noqonaya first of all daawadeen kulay in daawanay Caashay waa dad Soomaaliya marka net waxa xidhiid ayuu u baahan yahay baad leedahay Soma qofta dad information siiya dad kale u sii gudbiya marka xayaan marka ugu horeysa network-ku adigii buu ku noqonaya customer adigoo kale maanta dad matalan itimaadid oo customer in noqotid qof kale ugu sii xiraysa hadaynu taasi waa toogu horeyso ku taray network-kaagu laakiin ta aad aan ugu sameeyay xayaan inay dad isugu yimaadaan oo goob u noqoto dad isku fikrada oo doonaya inay maxaa la hadaa meel sare ka gaaraan ganacsiga oo marka isqaan qabtaan oo iyagu kala faa'iideystaan oo is dhiirigeliyaan hadii qofku maartay marxa jirta niyadu ka jabaso ganacsigu adeeg yahay waliba especially marka bilow aad tahay so sababtan u bilaaway taas ahayd aniga iga maqnayd network markaad asaasaysi cafeteria in badan baan ka maqnaa marka waan ku cusbaa dad badan ma noqon haddana waxaan dareemay inaan taas oo kaliya ahayn markii anigu aan
cafeteria bilaaway hablo badan oo maxaa hada young female entrepreneurs ka hablaha ganacsiga inay ku badnay wadanka ayaan dareemay laakiin baryihii anigu aan arkay cafeteria-gu inaanu sidii aan doonayay inaan u soconin oo iska joojiyay ayaan dareemay inay hablo badan soo kacaamayaan oo businesskii bilaabayaan markaasaan sidhi iyaga u fur wixii adiga aad berigii aad weyday oo u bilaaw oo networking-ka u samee marka waxaan u fahmay in networking yahay mid ay ku tashanayaan waa intooda badan waxay badan qaar ganacsiba leh inkastoo laga yaabo in sanadaha ay u furnaa ganacsiga aanu badnayn laakiin waa hablo ganacsigooda inta badan leh bay u badan yihiin waana u furan tahay welcome way yihiin habliha ganacsi ka fikiraya laakiin waa meel ay isku qacan qabanayaan oo maxaa la yiraahdaa dhinacna isku dhiirigelinayaan in ganacsigooda saa ku wataan waxa laga yaabaa tan wixii ay khibrad ku leedahay ta kala ku lahayno information-kii experience-kii ay kala weedaarsanayaan waa tahay caasha ururku hawlo badan buu hayaa oo ah si ay dumarku iskugu xidhmi lahaayeen laakiin gabadhu markay tahay gabadh ganacsato ah haba ahaato gabadh aan qurbaha ka imanin oo joogta wadankii gabadhaasi kolley waa gabadh oo hadafkeedu wuxuu doonaysaa meel baa u calaamadsan inay gaadho idinka ahaan markay gabadha waan soo dhaweynaa waxa kolleyna hablaha inta badan ma iska yimaadaan mid kasta kii isle alla anigu bacmisir baan bilaab rabaa ama bacmisir baan leeyahay oo network ma haystii xataa network oo kaliya maaha hablo badan baa jirta aan la ogeyn in ganacsiga ay furteen oo meel yar ku qarsoon haday meesha yimaadaan dad kale ku baranayaan dadkaasna dad kale ku sii xirayaan waxaan kale aan sameynaa xataa waanu aan isleenahay idea-geedaasi aad bu fiicanta waa innovative sidii inantii aad wareysateen ayaan oo kale anaguna waan wareysanaa waan kasoo daynahay sheekadeeda iyo sida u bilowday iyo waxay sababtay u bilowday sida u bilowday businesskeeda waxaan kasoo daynaa platformkayada ayaan kasoo daynaa oo ah ama internetka ama offline marka internet ama internetka ama offline marka internetka waad ku qofkii waa aragtidiisa ku soo dhiibanaya inta kula soo xiriiraan adiga markay arkaan ciwaankaaga kula soo xiriir karaan waa sax kulli waxa la oran karaa internet ambaba email waxa wax ku iibi karaa hooyo aqoon leh laakiin waxa u badan yihiin Soomaalideenu inaanay dumarkeena hore aanay waxna qorin waxna akhrin inta badan dumarka ganacsatada alaftigoodu waxay u badan yihiin hooyo problem family intuu helay suuqi ka ganacsanaysa oo ninkeedii amba amal u waayay oo caruurteedii doonaysa inay waxay cunaan oo keento laga yaabo hooyadaasi inaanay qoran karaynin kunka shilin ee sidii la soo xiriiri karaa waxay horta imanka hooyadaba waa welcome waxaan dareenay inta badan xub badan yihiinba habla aad u dhalinyaro ah oo imanka jaamacadii 3 sanadood ka soo maqan oo dhinac ka shaqaysata anigu hablahaas aan sheegayo waan ka yara weynahay in yar baan ka weynahay kaadhe marka hablaha anigu markii hore waxaan doonayay habla aniga kale la daa sidaas oo kale ama hooyaa ama sidaas oo kale daadeedii ah waxaan arkay inaanay kuwaas interested ahayn in hablaha aad hamigooda aad u doonayna waxaan dhex galaanay bartaan businesskii ka warkeena in hablaha young ah yihiin oo online u badan yihiin qaarna xataa kuwoodii xataa shopka lehi inay xataa arkayaan dareemayaan in online-ka aad looga baahan yahay aad online-ka uga xaysiinaya ama Facebook hata ama meelaha kala haata inta ka xaysiin halkaaba ka iibiya midmidda ugu timaado dukaankoodina soo dhaweeyaan marka iyagaaba na soo doontaba marka ka ururahan dumarkiina kale ee aan iyagu toos idigu xidhnayn maxaad ka qabataa waan aniga markaan maqlo kale inanta metal ugu soo qaadiya maadaama taa ila garanaysa ayaan oo kale saliid carrot-ka saliid ka soo saarta waan maqlay ana doontay inanta halkan ka heli karaa walay tilmaamay sidii baan aan marka ku soo dhaweeyay qaar waxaan sameeyaa dukaamada qaar intaan u tago ayaan idhaahdaa waxaan organization ka sanahay raba in hablaha ganacsiga la caawiyaan oo ma naga soo qayb galaysaa marka tii doonaysa naga soo qayb gashaa marka marna anaga doonana marna iyagaana soo doonta
hadda laakiin maadaama aan aad magacayagii suuq u soo gelayo oo u soo galay iyagaana soo doontaa. caasha ka urur ahaan qaab noocyo ganacsatada wada shaqaysaan ganacsatada haweenka sheegayo adigu bishii mar ayaan isugu yeedhaa aan idhaahdaa taariikhda maalinta tahay imika kale bisha 5teeda ayaynu isugu imanaynaa. waxaan isugu nimaadnaa inta badan restaurantyada ama cafeeska caanka ah sida imika kale Lali's Cafe ama Sultan aan halkan ka xayeysiiyay halkaasaan isugu nimaadnaa ama coffee baa isla yara cabaa ama haddii markaa waqtigii cashada la isla yara casheeyaa. kabacdina taas waa marka aanu kulli intii isu iman kartaa isu nimaadno. kabacdina kuwii halkaas ka barta ama anigu aan ka barto telefoonkaas kala sii xidhiidhnaa. wixii kale aanu isu tari karnaan isu tarnaa. waxaan kala dareemnaa hadda inay qaar badani ay u baahan yihiin coach qof de maaragtay dhiirigeliya oo dabada dee aad u dhiirigeliya inay businesskoodii aanay si fiican u habeeyaan. ay habees buu baahan yahay inaan noqon waxa kamid ah wax walba hay aan noqonin oo dhinac kaliya ay focus ka saaraan ma garanaysa. marka kaasi aad imika aan dareemay kaasaan imika bilownay inaanu coach garayno. marka ma sameeyno marka aan soo wada nimaadno waxaan sameeynaa qofka gooni baan ula balanaa wixii u baahan yahay eegnaa plan baan la sameeynaa sidoo businesska u bilaabi lahaa ama haduu hore bilaabay loola habeen karo lahaa. waran wali ma ku timi gabadh aan iyadu haynin wax dhaqaala adigu laakiin imika hablix way fahmeen inay iyagoo lacagti haynin inay waxyaabaha qaar ay soo saari karaan aan u baahnayn lacag badan oo waxa kamid ah wixii online ay ku sameeyaan ma garanaysaa ama lacag yar ku bilaawaan. ayaa wadinkii wareystay waxay tirayaan oo kale anigu ma baan hayninba lacag wax kaliya iga galay wuxuu habay tiri machine yar oo gurigay hooyadad yaalay ku ridqday maxaa la yiraahdaa karoodka wal aakhirkiina si asliid uga soo saarto. marka hablihi iyagaaba laakiin iyagaaba ma ogtahay fahmay oo marka iska ilaaliyaba wax lacag badan u baahan. anigu markii aan ka fatiirayga aan bilaabay maadaama businesskaygu horeeyaha lacag badan buu baahnaa lacagti badneedna maan haynin hatta dad lacag gelisid haddana dhowr bilood ka bacdi wuxuu noqonayaa sidii aanad kharash ba gelinin soo markaas imika daas waa markii anigu aan link bilaawayay aan ka fikirana wax aan kharash iga baxaynin aniga inaan abuuro. marka aad joogtid dumarku way ku wada imanayaan in markaad waxa jiray kulan hore oo ka qayb galay oo hiddo dhowr aad keentay dumar dhan oo ganacsata markaad iyaga isku keenayso iyaga dhexdooda meena jirin dumarku waan dareemay toos midna iguma oran hadan idiga soo qayb galo meesha nashadida laga xadaya laakiin waan ka dareemay marka iminka waxay markaan in badan daaimka soo jirnay dhowr jeer soo qabiyay qof arkaan ay yaqaanaan in ka soo qayb galay ayaguna marka ku dhiiradaan ka soo qayb galaan waan u sheegay waxaan dhahay hadii mid kabo kaliya iibso adna boorsooyin isku mid ma tiidin competition ma noqonayso wax isla tartamaya hatta dalabadiina boorso iibisaan midna xageena boorso $200 iibiso midna boorso yaro agabigiisu $20 ah marka marna isku waxa isku mid tiidin maaha marka marna isku waxa isku mid tihiin maaha oo kala baqataan jiro in ka ururahan in caasha maadaama uu ururka yahay urur dhisan hablaha ganacsatada ah in kaliya waxaad focus ka saartaan aragtidiinu ay tahay in dumarka ganacsatada mise haweenka kale waad caawisaan. ugu hablahan kula taliya iminka coachingka markaan bilaaway inaanan sida dukaanka kale aanad wax walba hay noqonin ya dhinac la bariiska taas wax kale sameeyay suuq markaad aragto waxaad arkaysaa dukaankiyo dhinac sokorti ka iibinay dhinac kabii ka iibinay way jiraan laakiin hadii loo fiirsado businessyada ugu successful-ka ah ee meelo badan ka furtay iminka kale hadeen ku sameeyay qaadno kale hodel Mansoor kale waa ka furtay Hargeysa haddana Barbaru ka furtay وممكن حمقلي دولال كلو ميلا كلا كيبسد هدو خرج كو هلا ميلا كلا فرو مركا wax kali xoog saartid markaasu aad u kabcaha oo marka ogeed baan uguna isku eega inaanan
cid kasta caawin waayo aniga organizationkaygu hal organization inaanu meel kaliya xoogii saarno oo markaa dadkii kale u baahan wax dumarka kale u baahan ama hada kuwa yaanyada iibinaya bacadlaha ama noqdaan kuwa aan business ba lahayn inay organization kale nagu daydaan iyaguna sameeyeen kasta organization badan jiraan laakiin hadana wali meelaha qaar aan ka jirina ay iyaguna u bilaabaan laakiin hadana wali meelaha qaar aan ka jirina ay iyaguna u bilaabaan ama saad sheegaysid la ismoodayo in qof kale nashqad kala ka xaday adoo qofkii isku waxba aanay ahayn ayuu isaga dareemaya moodaya inaad ها markaas uu dareemaysaa inuu qofkii marka hore ku qosli jiray maalinta dambe ku qoslaynin marka taasna xaweeyaan adiga wad arkaysaa ilaahay inuu ku arkaya howlahaaga iska wadanaysaa marka arintaasi aakhirkeeda iska baaba'aysa qofku marka dambe markuu arkay doo waxaan xoogaa soo waday wuxuu dareemayaa inaan isku mid ahayn waa tahay in hablo markaad kaliya ma kulankiin baad isku timaadaan mise intii shaqaysanayaan oo kale waad la kulantaa oo ganacsatada ku dhiirigelisa maxaad kula talisaa hablaha kula shaqeeya horta kulankaasi waa khasab oo soo nimaadnaa ka bacdi anigu maadaama anigii aan meeshii aad u wado anigu hawsha badan sugayso hablihiisa aan uga warhayo oo ugu taga meeshooda ganacsiga ku yaalo hadii online yihiin goonaan ula balama waxa dila qofku asbarateena kaale maanta isla shaahayno dhibaatada ka maraysa dalka qof ba ka soo baxa aad u baahan in la dhiirigeliyo in la taliyo kaana marka program iyo plan gooniyaan soo bandhigna wali hablaha la shaqeynayso mid ku timi oo ku tiray aqabad ba iga haysataa shaqadii aan hayay ahaad ganacsiga way badan kolay qaar kharashkii aan u haynin laakiin intooda badan waxaan dareenay inaanay leeyihiin waxaan haysta xayaanaano aad suuqi ugu dhex jiraan dad badan aan naga warhayn laga yaabin alaabo badan fiican hayaan laakiin aan dad badan aan ka warhaynin hawla kale ku mashquulsan yihiin laftigoodu shaqooyin kale hayaano tan way jiraan qaar hasaas sameeya qaarna waxaan garanaynin sida suuq gelintii u sameyn lahaayeen iyagoo oo focuskooda kaliya yahay hawsha hadana aan garanaynin sida suuq gelin lahaayeen dadka aad la shaqaysaa ma dad qurba joogaba mise waa dad dhamaantood wadan jooga طبعا markii aan bilaawayay oo bilowga ahayd bishii horeysay labadii bilood waxa ka soo qayb galay dad anigu aan garanayo ama family ama asxaab ama qurba jooga way waxad ku bilaawaysaa wax kastaba dadkii ku garab taagan ka bacdi laakiin waa la bartay wadankana wadan qurba joog ma aha wadan local dadkii wadankan joogay baa ha u dhashay ku koray oo joogay ayaan badan dadkii xataa qurba joog xabadii joogtaana way naga soo qayb galaan laakiin wax la oran kara ma aha qurba joogan xoog ka saarana waa mid meelaha shaqurbi ka soo noqotay oo ku dhexlunta Hargeysa dad badan waxa jira ganacsato ah laakiin aan aqoonin ururka link organization laakiin iyagu shaqeeya oo ganacsato ah idig wali xiriir ma la sameeysan oo ma is aragtaan oo dhinac ka shaqeeya sheegaysa dumar ganacsato wadanka magaalada jooga oo aan ahayn ururka link organization kuwa linkimka ahba iskama noqonin ama hore ma ahayn waa qaar deena soo maqlay ama anagu isu xayeysiinay oo anagu doonanay soo kalba xabad baan ugu soo beerta anaguna xooga diintan saarnaa in dad badan ogaadaan anagu taasana oo fiican xaban uma tareeso shan qof meel ka fiiqan hadii maanta shanta qof maanta ka soo qayb galaan doorka dambe waqti kuma hayaan soo markaas anagu cidii noo iman kartaa waa welcome anaguna isku eegnaa in iyagii soo xayeysiino laakiin waxa dareemay imanka soo hablo badan ba isu sii sheega marka isku sheegaasi waa markay kulantaan ay intii la soo casuumay in kala sii gaa ama sideedaba waxa laga yaabaa imko kale xataa coaching program kan inaan baa laga yaabaa inaan coach gareeyo inaan kale baranaysa ama taqaantaa soo oranaysa arrimahan ku haysta link ba ka caawin karo imka coaching bay bilaabeen ama waxa laga yaabaa in iyadu uu naga soo qayb gasho kulanka aanay laakiin coaching-ka aan qaadan laakiin qof kale ay garanayso oo coaching-ka u baahan si nagu soo xidhaa markaas qofkii toos kula soo xiriiraya watay wali gudoomiye waxa tahay ururka link organization in adiga ka shakhsi ahaan inta hawshan waday ma jiraan dumar iyagu u baahi qaba sidii ururkan uga mid noqon lahaayeen oo aan wali ku arag adiga kuwa horta aanay arkin aniguna aan arkin kama warhayo laakiin kuwan arko waxay qaar bariga hor xiran jireen bilowgii alla maxaad
uga jeedaan organization-kan miyaa loo baahan yahay laakiin imka maadaama xoogaa joognay weyn dushan korkay naga hayaan marka way ku farxaan iyagaan nala soo xidhiidha midhna waxa laga yaabaa anaga qudhayadii ayaa ogaanay halku aan xoog ay tahayna saarno marka imka aan isu sharaxno markiiba hore ka fahmaan markiiba aad ugu farxaan sidaadan sidee baan uga soo qayb gali karayaa keeno san horeba u sheegay Caashay inta badan aqoontu way ku yar tahay laakiin hadaf ay leeyihiin in tusaalahan kuwa suuqa fadhiyo oo kale wali idinku intaad focus ka saarteen u tagteen ama istiraadeen dumarka waxay nooga soo bixi lahaa dumar inala fahma shaqadeena والله waxayaan qaar badan wasa sheegaysa duruuftiba uma saamaxaysa inay kulan ka soo qayb galaan waqti ma hayaan maalin kasta waxay rabaan inay mushaharkoodii carruurta cuntada ugu sameeyeen ka soo saaraan anagu xaysiiskayga wuxuu xataa ka mid yahay iyo hadhoon asleen training xataa ka bixiya waa internetka ma nala fahmayaan ma garanaysaa marka anaguna ogeed waxaan dooranay inaanu hablaha young entrepreneurs ka xoog saarno oo internetka fahmay sida la isaga xisay imkaan ku oran karaa inaan tamaandho ku iibinayso bacadlihii Facebook iska xaysiis suuqa wada baran lahaa macno uma sameynaysa iyadii ma garanaysaa computer ba ma haysato waqti internetka fadhiisto ma haysato marka anagu cafeteria iyo saan ku soo noqday sheekadiisii waxa weeyaan waxyaabo badan buu de aan ka fahantay marka waxayna wax walba haya noqonin ma garanaysaa xataa waxa jira dumar internetka fahmaya lacag badan haysta doona meel xil soo dajiya haddana kuwaas qudhoodu link ma anfacayo anaguna iyaga naga soo qayb galan ma anfacayo anigu xataa kala waxaan nahay kala shaqan nahay link ka yarna sano an adi shakhsi ahaantaada wadanka waxaad sheegtay inaad joogtay muddo 4 sano waxyaabii kugu la yaabka badnayd ku aragtay maxaa kamid ah maadaama qof qurbaha in badan jooga aad tahay kale fikrad ka hayay oo Afrika horena waan u iiman jiray fasaxyada waxa la oran karaa waxyaabihii aan tabay de halkan ka jirin xaga ka jiray waxay waa wada dhisan ina jidkaas dad maraysid ama gaari ku wada ama maraysid aan dhinacna riyahan أنا تسكي إلى أما قف وعلى تسكي إلى وما ترى gaariga iska wadid cidna kula hadlaynin adu doono highway yahay oo maanta dhan traffic iyo qof talaabay aanu ku qabanaynin iyo meel la soo luglugayo ma jirto soo waxyaabahaas oo kale waxyaabo aan tabi karayo yani meheradaad kula yaabis qanacsatada waxa weeyaan miya adigo arka inuu qofku wax walba iibinayo wax walba hayahay waa isaga hadii u noqotay waxaan sheegayaa inuu lisxaasidayo kala ganacsiga qof aanad isku waxbaba iibinaynin aad xaasidid oo tirahid alaab fiican ma hayo oo kale marka waxaan dareemay in la sirxaasidayo taas oo kale waxaan وتهاي داوديال وحين كدونا هاي جبجبة برنامجكينا هالدورك هوينكا أو أي مرتي جواهيد قدوميها أوركلينك أورجانيزيشن عاشا محمد أحمد إن عاشا إن جبجبة برنامجكينا مرينا إن بدن بينو شاكي سنة حرتشينا يا إن نسفي عن سكول هاي سنة إن سؤال قدام بيسا ما حدش على لنا هذيك السيو حد كيف فايدة سلها hadda aan waxaan dareemay in dhalinyaro badan leeyihiin shaqo ma jirto aan shaqo xagan ka abuur shaqadaan jirin aanu ganacsi abuurno waxaan kula talin lahaa ha iska oraninu shaqo hadii maadaama shaqo jirin aan wax iska abuuro oo business sameeyo waynaad wixii si fiican uga fikirtid oo eegtid kharashkii ma u haysaa si aan hadhow ugu khasaaroobin oo eegtidna waxaan wax adigu aad fahmi kartaa ma tahay oo wax kasta aanad iska qabanin iyo wixiina adigu wax aad u jeceshahay inaad ka shaqeysid ma yahay way hadii lacag kasta u haysid iyo khibrad kasta urutaxa laga yaabaa inaad wixii ku caajistid ma garanaysaa oo wixii marka hakii kaga dhaqaaqdid marka ha noqdo wax aad adigii aad jeceshahay oo passion aad ka tahay oo isleedahay dadweynaha kalena u baahan yihiin waxyaabo jirta aad jeceshahay laakiin dadweynuhu aan u baahnayn laakiin labadiiba ahaado adiguna aad u baahatid dadweyn adigina jeceshay wixii dadweynihiina u baahan yahay yaa oo wixii ka oo dadka aad hore ganacsi soo maray aad wareysatid yaa ama ururada ama organization-ka aad wareysatid wixii aad adigoo maskaxdii si fiican uga fikiray aad ugu dhaqaaqdid
aad baad mahadsan tahay waqtigaaga mar kale oo kaaga mahad celinayaa daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa gabi ahaanba barnaamijkeenii haldoorka haweenka barnaamijku wuxuu aad ugu mahadnaqayaa dhanka kamarada iga caawinayay Cabdiraxmaan Daacad iyo waliba dhanka farsamada isku dubaridka barnaamijkeenan oo ah Arsame Iglan magaca jiba ku dhacayna kaas وأنا هذا نسحق شبريل دمانتي واحد يجتكيا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعو كاغا مهندقيا